نقض من هالشيء إن شاء الله. حقي أن كسب أن بقاضه. مركين نكون هذني قاب كلا سكول حراس سياسة يا قاب كلا استعمال يا جستنا سياسة أنت أنا حق عارفين واحد دنيا إنك كلا هذا صدق قاب سياسة كلا قرن. طبعا بقول شيء نسينه هروس وراني سياسة صدق قاب يا الله. طيب كوبات أم بقى أنا external هرت قاب إنه هي أو external سياسة وأمريكا أينو file جونية أينو معناه CSS كي HTML كأنه كلا صارنا يمكن HTML كواكا CSS كي نو file نو جونية كان أيال هذا external CSS واي مركا external CSS كواحد نصو هرسن inline يا internal لبضا بقى قبل جود بقى واحد يقول دحقورية file كأيال يقول دحقورية file HTML واي تصالحها هاد inline style ka ku horeysiin inline style ka marka loo horeysiinayo isaga attribute ahaan ayaa loo isticmaalaya oo waxa ka mas'uul noqonaya attribute la yiraahdo style oo deedna marka aad doonayso inaad color ka casaha color kaas un baynu ka bedeli insha Allah deedna waxaan noqon doonaa color blue wade inline style marka qaabkan marka la isticmaalayo ayaa la yiraahdaa waa qaabka labaad ee aynu iminka eegnay ee CSS-ka loo isticmaalo way qaabka saddexaad ee inline style-ka loo isticmaalo waa marka heerka la dhex gelinayo dabcan oo isna waxa ka mas'uula tag ee kan waxa ka mas'uulaha attribute la yiraahdo style laakiin kan waxa ka mas'uul noqonaya tag la yiraahdo style tag dadna xaqan waxa soo galaya CSS kaliya soo galaya dadna isaguna wuxuu la mid yahay qaabkan u baad external style-ka ayuu isna la mid yahay oo qaabka external style-ka loo qoray ba loo qoraa dadna isna waxa u baahan tahay dabcan selector baad baahan tahay paragraph de dadna qowski soo fur soo xib color waxa raacdaa yellow de okay marka qaabkan loo isticmaalayo waxa la yiraahdaa external CSS qaabkan marka loo isticmaalayo inline CSS baa la yiraahdaa marka qaabkan loo isticmaalayana waxa la yiraahdaa internal CSS amba embedded meelaha waad ku arki kartaa embedded laakiin sab magacaadu waa external inline iyo internal ya xanna gali way su'aasha marka aan rabo inaan ogaado waxa weey iminka saddex qaab ah isticmaashay hada waxaan doonayaa inaan saddexda qaab iminka isticmaalayo ka awoodda weyn inaan ogaado ayaan iminka rabaa iminka saddexdii qaab aan soo aragnay iyo qaabka loo isticmaalayo laakiin waxaan doonayaa inaan saddexda qaab ogaano sida yaa awood weyn saddexda qaab yaa awood weyn dadna si aynu saa u sameeyno wanaagin kala duwan baynu isticmaalay oo dabcan waxay sameynayaan saddexduba iminka paragraph-ka ay saddexduba color siinayaan kan casaan buu siiyey kan blue buu siiyey kan wuxuu siiyey yellow buu siiyey dadna waxaan doonayaa iminka saddexda style saddexda qaab CSS loo qoro ka awood weyn ayaan doonayaa inaan macasaanka awood weynaan doona external-ka awood weynaan doona oo casaan bal siin doona mise internal-ka awood weynaan doona oo yellow buu siin doona mise inline-ka badana aynu eegno insha Allah xaga waxa ka cad in uu meeshu ay blue noqotay talowiya blue gowatay macnaheedu waxa weeye inline style-ka ayaa ugu awood badan inline style-ka ayaa ugu markasta ugu awood badan way yaa talo ku xigaadana si aynu ogaano cidda ku xigta awoodda waa inaynu kan ka saarno dadna labadan kale aynu eegno cidda awoodda ugu badan dadna hurudna yaayno watay internal style okay
macnaheedu waxa weeye imika waxa ugu awood batay inline styleka ugu awood badan, internalka ku xiga, externalka ayaa ugu awood yar. macnaheedu waxa weeye wax kastoo meeshan laga soo siiyo haddaad doonayso inaad dib aad u bedesho waxaad ka bedeli kartaa adoo labadan isticmaalaya inline style amba internal style. labadana waxaan filayaa in ay qaabkay u kala duwan yihiin aan isla fahnay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.